Today we are talking about the frontline state or Black Lion. Also, it is a regional, approach which will complement the efforts of the government and the efforts of ATMIS. As we say, the enemy is the same. If today Somalia is affected, the security of Somalia is affected, this will have a negative impact on Djibouti, on Ethiopia, on Kenya, and beyond, even Uganda and the entire region. So we agree that we'll intensify our coordination. Shirkadda iibinta iyo kireynta guryaha iyo dhulalka ee AAA Properties haddii tale ay kugu xumaato taah iyo tiiraanyala tiicaysay soo jireen baa yiri wax la helo haddii la haleeyana la halo tala jirtee aan kula taliyay tilmaamtayda raaco ha turanturoon. Shirkadda AAA waxaad ka helaysaa kireynta, iibinta iyo suuqgeynta dhulalka, isteetiyada iyo apartmentyada. Guryaha ay ku fududeyn karaan si aad ugu tamashlayso waxay ku kala yaalaan xaafadaha Islii, Parklands, South Sea, Soikimau, Nairobi Metropolitan iyo ismaamulada kale ee Kiambu, Muranga, Kajiado iyo Machakos. Dhulalka iibka ay ku hayaan waxay ku yaalaan Kagundo, Eastern Bypass, wadada Thika iyo Mombasa Road. Shirkadda waxay iibisaa dhulal iyo guryo la hubo mulkiyadooda iyo lahaanshahooda iyo heshiis sharciyadiisa u dhameystiran tahay. Tunisia iyo Uganda iyo Tripoli iyo Togo, Somali dhammaanteed talo waxay ku gooyeen shirkadda AAA Properties anfacday la yaab kale degdeg aan u gaarno. Wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir eber 7 2 eber 9 eber 8 6 9 5.